وعثمان محمود بور مدو bal waxaad ka warantaa wadankaad ku sugan tahay imaaraadka oo aad adigu u dhoon dalooshood waliba degan tahay saldhig military baa laga siinayaa berbera bal saldhigga military horta soo kula muuqda adiga saldhigga military de waxaan khayr iyo baraka inuu yeelaya ma jirto waxa weeyaan saldhigyadana waxa weeyaan waa dawlad aad iyo aad u yar weeye dadkeeduna uu yahay tirada Djibouti uu ka yar yahay waliba ka sii yar yahay waa dal aad iyo aad u yar hadduu bato wax lagu qiyaasaa ilaa 600 oo kun oo qof 1 milyan ma gaaraan inta ciidamo ka noqon kartaana waa iska yar tahay inaga hore inuu qaacidooyin ay ka jirtay dalkeena oo Ruushka iyo Mareykan mid lagu digala daqiiqada la naga baxa waxa weeyaan heshiis bay ku imanayaan heshiisna way ku tagayaan wax dhibaato ma leh waxay inoo keenaysaa dal aan la ixtiraafsanayn oo cid la macaamilayn iyo dal cid la macaamilayso baynu kala nahay maanta waxaan dad cid heshiis la galayso oo la macaamilayso oo danahooda iyo qawaaniintooda ilaashanaya oo maslaxadooda ilaashanaya inuu nahay marka runtii anigu waxa weeyaan dalka Imaaraadka dad muslimiin dad dhaqan aynu kala duwan nahay oo diin ahaan iyo dal ahaan iyo dhaqan ahaan waxinoo yeelaya maaha maxay markaa Soomaaliland dhaafsanaysaa boqor wax xoga ma ka haysaa aduu maadaama Imaaraadka u dhoon daloosho horta waxa ugu weyn ee waxna la qaban karaysaa waxa weeyaan inay inala dhismo ciidan ahaan iyo awoodeena ciidan iyo dhaqaalaheena iyo mashaariic aynu ka helo horumarineed iyo haddii aan laba leeyahay hiro iyo dhaqaale inuu ka soo hoyin karta oo dalkeena wax fari karta xaggii aqoonsiga ma laga yaabaa in xaggaas Soomaaliland ay la soo qaado oo wax ka weyn oo marka laga yimaado dhinaca ciidamada iyo carabta albaabadoodu wayna ka xidhnaayeen meesha aqoonsigeena uu ka xidhnaana dalalka carabta way ahayd dawladda federaalku haddii ay sida ay hadda loo arko ay ka muujiso xumaan ka muujiso xiriirka ay Soomaaliland dalalka Carbeed ay la leedahay oo dana badan iskaga xiran yihiin hadda ka muujiso arrinkaas waxay soo dedejin kartaa dalalkan Carbeed ee khaliijka inay degdeg inoo ictiraafanayso farmaajo wuxuu tagay wadanka Sacuudiga wax xoga isaga ma ka heshay arrintaas saldhigga military buu ka soo horjeedaa baa la leeyahay anigu walaaca laga muujinaya kama qabo farmaajo inuu halka kan soo faragelin karo nufuudna ku yeelan karo waayo 10 iyo lesana wixii adeerkii uu ka kasbaday ayaa ugu filan boqor Ismaan waxa jira muddo kordhin ayaa golaha hortaala guurtida muddo kordhintaas waxa isla qaatay xisbiyada iyo xukuumadda waxay dad badan oo wadnaha farta ku hayaan in waqtigii loogu talagalay ama la isla qaatay ay dhaafiyaan suurtagal ma tahay baad leedahay in guurtidu intay laalaan sharci darro ku tilmaamaan sidii hore u dhacday ay iyagu ay wataan ay ku dhuftaan absolutely waxa way dhaqanka guurtida markaynu naqaano guurtidu iyada ayaa dastuurkeeda xaq u leh xisbiyada iyo xukuumaduna uma yeelin karaan intii kordhinayaan ama dhimayaan waxaan se filayaa inay samayn doonaan ama wax ka dhimi doonaan ama wax kordhin doonaan laakiin kulliba ma noqon doonto intii ay isla gartan sidaan anigu dhaqanka guurtida lagu yaqaan waayo waxay noqonaysaa awoodeedii iyo xuquuqdii uu siinayay dastuurku haddii loo yeedhiyo details ay qaataan inaanay iyaga ay ku noqon doonto in la hago taana ma yeeli doonto guurtidu laakiin ama waxbay ka dhimi doontaa ama waxbay ku dari doontaa ama ha yaraato ama ha badnaato waan gartay madaxweyne Sinaayo wuxuu ku joogaa safar wadanka Ingiriiska safar shakhsiyana uu tagay dad baa mudaharaaday sidoo kale gudoomiye Ciro maanta ugu dambeysay waxa uu shacabka ugu baaqay in la isku soo baxo oo la mudaharaado bal fikirka ka waran gudoomiye Ciro anigu waxaan u arkaa Ciro anagu saaxiib nahay inuu hana qaado oo koro xisbigiisuna koro taladiisuna korodho mustaqbalna yeesho ayaan anigu rajaynayay laakiin arrinka kani wadadan hadda ku socda waxa weeyaan waxaan u arkaa inay awoodii Ciro iyo kalsoonidii shacabku inuu muuqdo inuu u dhilmayo sida basashu u dhilanto awoodiisii inay soo dhilmayso inuu talada uu ku socdaana talo aanu mahadin doonin uu yahay oo aanu shacbiyad kaga heli doonin Soomaaliland waayo inay isku mowqif noqdaan farmaajo iyo dawladda federaalka inay isku mowqif noqdaan ama uu soo ka sii fogaado dastuurkii iyo qawaaniintii iyo wuxuu wax ku ahaa ee gudoomiyaha ku ahaa iyo wixii golayaashiisa inuu ilaa alaanka ku sii indhaadaygo inuu khilaafo anigu waxaan u arkaa inaanu ku mahadinayn inaanu waxna ku helayn waxaana qabaa doorashada in la soo dedejiyo baan qabaa anigu taasina waxa weeyaan in maanta Ciro arrinkaasi hog madow ay ku ridi doonto isaga iyo xisbigiisa iyo taageerayaashiisuna
aanay mahadin doonin wadadan ay ku socdaan ee ay kaga hor imanayaan horumarka Somaliland iyo maanta qawaaniinta Somaliland maanta xiro dastuurku hadduu siiyo codka inuu helo oo isagu madaxweyne noqdo hogaaminta isaga ayaa xaq u lahaa isaga waxa weeyaan haddii baarlamaanku isaga codka siiyo oo taageero diidmadiisana isaga maanta wada yeelana laakiin baarlamaankiina muu raacin labadii gole ee guurtii baarlamaankii inuu isagu ka soo horjeesto uu ixtiraami waayo arrinkaasi waxay ku tahay maanta dabarjab bay ku tahay isaga xisbigiisa fadeexad bay ku tahay waxay ku tahay arrinkii maanta inuu u ololeynayo Ciro inuu dalka kan meel madow ku rido ayaan ugu arkaa kula talin lahaa inuu ka leexdo wadada cagaaga badan oo ku socdo aad baad mahadsantahay boqor Cismaan Maxamuud Buurme